السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي وعشر كيني صدح التوانات وقيبينتا عشر كيني كوباد صدح قد لها عاو عشر كان قادن دونه وحن نقن دونا صدح قد الله قيبيني صدح قد وحن نوصل دماضن أما عشر كي قدام بيان صار لقناي لبا قد الله قيبيني يو شن قد waxaana filayaa in ardaydu ay si fiican u fahmeen xisaabta laba gudlaha oo loo qiimeeyo tiro badan ardaygu hadduu soo dhigtay ilaa iyo mataqaanaa shan gud oo loo qiimeeyo laba gud si fiican u fahmi karaa saddex gud iyo afar gud intaasna dib u saa ka fahmi doona oo xisaabta ayada isfurdhow xisaabta ayada isfurta hadaa mid baratid midda kale ee tusaale wala lagu siiyay ta kala ka shaqeyn karaa marka sidaas weeye حسابتنا تصارح نقول واحد ويه صدح بقول سديتن ولو قيبي بقول لبعتين له صدح بقول سديتن بوق سديبا أو قيبين كنا بقول لبعتين له عرضي أنا أقول ساعة دارة أو قيبينه وأما سيس لاج أنا أو قيبينه أنتي وقف البكوس عدميسه مركر وحن فيرنا هدي بنانك تعالوا صدح جود هدي تعالوا جودها صدح جود أو كم إذا هبان usoo qaadayna san ognahay ama qaacidadan hore aan ku soo sheegay sidaas weeye hadii ilaa kan weydo ama tirada gudaha ay ku jir haday yaraato tiro afraad baan soo saarayna saadan soo sheegnay baan ka dhigaynaa marka sidaas baan ku xaleynaa saa casharadena ku soo xalin jirnay oo kale marka hore casharadena hore markii laba gud banaanka yaalaan laba gud baan soo qaban jirnay Soomaaliya marka hadii ilaa kan weydo gud saddexaad baan ku soo diri jirnay sidaas bay ahaan jirtay waxa xasuustaan baa filayaa marka la boqol laatiin lix tirada lagu dhufto oo 380 keenaysa ma jira arday haday tahay tiradaas baan kor saarayna hadhowna waa ku dhufanaa tiradan ku dhufanaa waa kala jaraynaa markaas sahanoo kale hada boqol laatiin lix waxaan ku dhufanaynaa laba ku dhufanaa marka hore sababtoo ah hadaan hal ku dhufano boqol laatiin lix isla ayada soo noqonaysa wuxuu ka bedeli maayo laakiin laba hadan ku dhufano waxa soo baxaan fiirino laba lix lagu dhufto waa 12 labadii qoraal baa wata laba afar laba lagu dhufto waa afar hal ku dar waa 5 laba hal lagu dhufto laba waxa soo baxay 252 soo baxday laakiin aad baa uga yarahay Soomahan sadartay tira saddex baan fiirina marka 226 hadan saddex ku dhufano saddex lix lagu dhufto intee way waa 18 calaamada ku dhufta waa 8 zed qoraal baa wata saddex laba lagu dhufto intee way waa 6 halka ku darto 7 saddex hal lagu dhuftayna waa 3 maxaa soo baxay 378 baa soo baxay halkaana maxaa noo yaala 380 marka waxaan ogsoonahay in ay tirada ugu dhow ay tahay 378 marka saddex waa u saarina marka haye 300 marka saddex ku dhufana 100 maxaa soo baxay 378 baa soo baxay waa qorna marka kala jarkan waxaan sameeynaa calaamada ka jarto haye halkan eber 8 laga jaray kama jarmado maxaa sameeynaa marka tira aan soo qaadayna muxuu noqonayaa 8 hadda halka soo qaadno wuxuu noqonayaa 10 bus noqonayaa Soomahan in eber halkan yeel halna u soo qaadno 10 bus noqonayaa marka 8 laga jaray intee weeye waa 2 halkan maxaa ku soo haray 7 laga jaray waa eber 3 laga jarana waa eber labada maxay noqonaysaa labada waxay noqonaysaa haraab noqonaya هي مركان خبينه متقنا إن بقول لبعتين لح وحل بقول لبعتين لح ذا قفة ليري مركان أوقي من صدح بقول شديتن بوق مدور بينتين قادنيا وحق قادنيا صدح بوق بقادنيا لو هذا بوقنا حرابي نقولنا ساعة ومتقنا وما قيب سمي كله شو تبى قريه معناها مركان هبينه أنا هبينه امتحان كمان نقنا أرضه وحسيدك بوش قيان هذا واحد عيكر إنه واحد خلطان marka maxay sameeyaan waxa laga baahan inay sameeyaan mataqaana waxa cheekin yarada ama hubinta hada marka saddex inta ku dhufano maxaa ku daranaa haraago ah labo labada halka ma uga daranaa 8 laba lagu daro 10 bay noqonaysaa eberka qoraal baa wata halkii 7 ku daro 8 saddexdan soo deji 380 ma soo baxay macnaha way tiradan kore wax ku dhufanaysaa tirada halkan taalo oo qaybsadayaasha ah hada wixii hadii haraag ku saar haraaga ku daraysaa sidaas waxa ku yiri kada hubinta casharadeen horena haddii aad mataqaanaa fahansaneen casharada hore dib ugu noqon karaa u qaybinta halka waxa noo taala 695 oo loo qaybiyay 115 macnaha waxa weeye 115 qof hadii loo qaybiyay 695 qof walba intii soo aadamaysa marka hore waxaan ku fiirinaa tirada koowaad ah laba ku dhufanaa
laba waxay ognahay haddaan boqol iyo shan iyo toban ku dhufan in aad uga badan tahay sababta boqol iyo mataqaanaa 15 oo laba jeer la isku daray buu noqonayaa waxay noqonaysaa hadii 220 iyo xogaa meelaha soo baxaya sidaa darteed waxaan ku dhufanaa tirada 4 buu ku dhufanaa marka hore ama 5 ayaa ku dhufanaa 5 aan ku dhufanaba hay 5 lagu dhufto intee weeye waa 25 shantii qor la wadataa 5 hal lagu dhufto waa 5 labada ku 7 weeye 5 hal lagu dhuftana waa 5 maxay soo baxda 575 bay soo baxda wili waxa weyn tirada gudaha ku jira macna tirada la qaybsadayaasha aad u badan saa darteed 6 baan ku dhufanaa marka 115 lagu dhufto 6 bay noqonaysaa 6 shan lagu dhufto intee weeye waa 30 eberka qor 3 wadataa 6 hal lagu dhufto waa 6 3 ku dar waa 9 6 hal lagu darna waa 6 hal ku dhufana waa 6 maxaa soo baxay 690 marka waxaan sameynaa tirada ugu dhow baan Soomaan hadii tirada ay leekan way tirada ugu dhow fiirina marka 6 baa ugu dhow marka waxay noqotay 690 bay noqoto marka maxaan sameynaa ardayay waa kala jareynaa 5 eber laga jaray waa 5 9 laga jaray waa eber 6 laga jarayna waa eber 5 muxuu noqonayaa 5 waxay noqonaysaa haraabi noqonaysaa haye sidaba oo hubinaya marka waxa uu hubinaysaa 15 ka sax ku dhufanaysaa 6 hadhowna haraaga baa ku darsanaysaa oo 5 buu noqonaya saano kale hadda soo ka soo shaqeynaa sameyn 115 marka 6 lagu dhufto maxaa soo baxay 690 ma soo baxay هي هراجي محنا وصاري شن بنوصار شنتي كدر مركب إيه بس شن نقدر وعشنتي سجال كسودتشي لحد نسودتشي محسوب بحي لح بقول سجال شن جودها إن محنا كوتشر هالكنا لح بقول سجال شن بكوتشر سادرت ويسلك جوابت محت هاي جوابت أكش قيس أرضيو وصح ساسا كوبين كذا شن بقول لبعتن اللوقي بقول يصدن بنوي حكته معناه بقول يصدن ما تقنا أرضي اللوقي بيني شن بقول لبعتن قلين أرضي والباء ayadoo si cadaalad loo qaybin arday walba intii ku soo aadamaysa weeye marka 130 waxaan dhahaynaa tira markii 130 lagu dhufto 520 keenaysa waa tiradee weeye sababta marka waxa ogsoonahay 3 gud weeye haddana waxa ogsoonahay in tirada gudaha ku jira ay ka weyn tahay tirada dibadda taala laakiin haddii iskhilaaf ahaan lahaayeen oo 520 dibadda ay taali lahayd 130 kale guduhu ku jira lahaa markaas maxay noqon lahayd dee waxay noqon lahayd lambar kale in loo soo raadiyo lambar afraad sababta tirada bannaan ku jira weynaan lahayd oo 520 waxaan tusaale kale 520 iyo 130 hadii saan kala ahaan lahayd ka war marka hadii saan noqon lahayd waxay noqon lahayd in la raadiyo lambar afraad oo tir ama afar ha noqdo ama in noqoto laba ku macna kun iyo in noqdaan laba koow iyo laba saddex Soomaan tira kale ku soo raacsan eber ha soo raaco ama hal ha soo raaco ama laba ha soo raacdo ama saddex macna mid wax loo baahan yahay lambar kale baa loo baahan yahay isaga noqoto kun iyo 300 iyo xogaasi oo noqoto baa loo baahan yahay lambar kale sababtoo ah tirada banaanka taala baa waxay ka weyn tahay tirada gudaha ku jirta sidaas weey sida u faham marka 130 tira marka lagu dhunto 520 keenaysa ma garanaysa ardayo waa garanaya waa tiradee waa afar weey aan ku eegna marka hay afar eber lagu dhunto intee weeye waa eber afar saddex lagu dhunto waa 12 labadii qor hal baa wata afar hal lagu dhunto waa afartii halka gudar waa 5 maxaa soo baxay 520 ma soo baxay hay kala tir marka eber laga jiro eber laba tir waa eber 5 laga jirana waa eber hubin kama baahnaaday hubinta sababta hubin hadaa hubinaysid labada tira la isku dhufanaya harana ma soo harinba 130 markii lagu dhufto afarna 520 ayaa soo baxay sidaas ku hubsan tahay tirada hadii marka saharaagu eber noqdo de hubintii wax hubina kama baahna kaliya hubin wax ka baahnanaysa in labada tira isku dhufitid sababta waa khaldi ka dhac arday qaarkood macna markay isku dhufanayaan 130 bay dhahayaan soo kale afar baa lagu dhufanayaan Soomaan afar eber lagu dhufto waa eber afar saddex lagu dhufto in dhaxama dhici kada 16 lixda qortaan hal afar lagu dhufto afar 160 ee dhahdo hadhowna ma taqaana macnaha uu ka tago xataa ma taqaana tirada hal qaadashada uu ka taga dhici kada marka waxa fiican inaad hubinta samaysid aad u fiicanta 388 oo loo qabiyay 190 هي أرضي واحد إسكبه لو بهاي هاي ترى مكي بقول سغاشن شان بقول ترى مكي لو قلت بقول سغاشن كيني سهب صدح بقول سديت زيد متشدة بقول سغاشن مكي ترى لو قلت كيني سه صدح بقول سديت مركا ده هل كله فناه ما تقنا وبقول سغاشن بصوب حسا هي واحد كله فنان لبا كله فنان مركا هي لو إبر لو قلت وإبر لبا سغال لو قلت وسديت قرا هالبا وتا laba hal lagu dhufto waa labadii halka ku dar marka waa 3 maxay soo baxday 380 halkana maxaa noo yaala 388 baa noo yaala marka tirada ma taqaana kor fuulis tirada noqonaysa laba noqonaysa
haye maxay noqotay laba eber lagu dhufto waa eber laba sagaal lagu dhufto waa sideed sideed qora hal baa wataa laba hal lagu dhufto waa labo halkii ku dar saddex maxay soo baxda 380 iyo 380 ma soo baxda hayaan kala jarna marka sideed eber laga jaray intee way waa sideed sideed laga jaray waa eber saddex laga jarna waa eber haraagu wuxuu noqday sideed buu noqday hay aan hubinna marka hubintii wax noqonaysaa intaan bay noqonaysaa sideed lagu daray bay noqonaysaa Soomaan laakiin aan hubinna inay naga khaldantaa dhici karta laba eber lagu dhufto waa eber laba sagaal lagu dhufto waa sideed qora hal baa wataa laba hal lagu dhufto waa labo halkii ku dar waa saddex haye laakiin weli macaan mataqaanaa way khaldanta sababtoo ah sideed baa waxay tahay 388 halkaana 380 baa taala haraaga hiloobi haraaga sideed ku dar sideed xaga dhanka midig baa ka bilaabaysaa ugu halkan hadaa dhigtid dhahday saddex sideed lagu dar waa ka khaldamaysaa halkaas aad dhigaysaa macnaheedu waxa noqonaysaa 380 oo lagu daray sideed buu noqonaysaa oo lagu daray sideed eber sideed lagu daray waa sideed sideedan soo deji saddexdan soo deji maxaa soo baxday 388 buu soo baxay marka ardaygu waxa sameeysaa inaad ma taqaanaa u qaybinta saas kale ugu celisid casharkan aad u badiyo casharkii 13aad u qaybinta weeye hadii ma taqaanaa ay ku adag tahayna casharadii kale ma taqaanaa dib ugu noqo oo hal gudliyaasha hadii tahay iyo laba gudliyaashi dib ugu noqo insha Allah tacaala waxaan filayaa inay ku noqonayso mid fudud casharadana kalena wax noqon doona insha Allah tacaala saas ugu gudbi doona oo qaybinta oo casharo kale ayaa bilaabi doona waxaan filayaa ardaydu inay fahmeen cashar 13 cashar ma taqaanaa hadii qaybinta laga diyaariyay way fudaan ka dhaa inuu ku ka shaqeeyo marka insha Allah tacaala casharadana kale baan bilaabi doona insha Allah tacaala